سيتي استحايا إلهانا يتجبينيسين أم عمر أن يتجبينيسين أنا جيسني ما نلقو دلاي بلغي نواقولي سنة نما نلقو دلاي بلغي نواقولي سنة We feel good. We've got all the momentum right now, and we're asking every single person in the city to get out there and vote. We have this amazingly strong coalition. North side, south side, northeast, southwest, you name it. Whether you grew up in Somalia, you grew up in the south of Minneapolis, or you grew up in North Virginia, we all have this special place that we can rally around. It's called Minneapolis, the greatest city in the world. So let's go. We're going to win this. It's looking good. I ask you to get up. ninkii laga ka guba xagasha laga guba godob yaryaraysi male madana dab ugu jiray maalinteedii baan joogaa sida xaalku yahay iyo xasarada aloosani waxay salka ku haysaa mid xasarad ka horeysay oo 2023 si aad ila fahanto waxaan falanqeynayo aan ku soo koobe waxa ka tartamaya oo duqa magaalada u tartamaya duqa caasimadda u tartamaya wiil la yiraahdo Umar Faatax gobolkaasina ka soo jeedo oo haybtiisu cidaas ay tahay aan tilmaamay waxa kale oo taagan wiil kale oo cadaan ah horeyna 8 sano u soo xukumayay gobolkan oo maayirkii hore ah oo la yiraahdo magaciisa Jacob Frey oo 8 sano dalkan u soo xukumayay gobolka ayaa isna tartamaya oo markii saddexaad rabo inuu noqdo maayir labada nin baa baratanka iyo tartanka u dhaxeeya haddaba labadaas waxa ka tartamaya oo duqa magaalada u tartamaya duqa caasimadda u tartamaya wiil la yiraahdo Umar Faatax mar waa madow gobolkaasina ka soo jeedo oo marna waa muslim inankan kale tartamaya maayirka hore ah inta midna lama wadaago Soomaaliya marka hore madow ma aha marka xigana Soomaali ma aha marka xigana muslim ma aha way halka marka ay taagan tahay sheekadu Soomaali fara badan baa waxay la safan tahay ninkan aan saddexda abtirsiino midna Soomaalida la wadaagay muslim ahayn madow ahayn Soomaali ahayn kaasay la safan tahay durbaanka u tumaysa doorashadiisa ka shaqeynaysa maxaa sababay waa halka aan rabo inaan idin fahamsiiyo waxa sababay horta Soomaalida aan tilmaamo Soomaalida waqooyi galbeed ama Somaliland ama beeshaasi waxay u sacabtumaysaa ninka cadaanka ah inuu soo baxo wixii dudada iyo degalka ka soo jeeda berbere iyo hargeysa iyo halka ka soo jeeda waxay leeyihiin annaga ninkaas cadaanka ah baa naga xiga ninka Soomaaliga dantayada waxay ku jirtaa ninkaas annagoo doorana waxaad ku sababaynaysaa hadii la yiraahdo waxa arkay niman dhalinyaro ah oo ardayga ka soo jeeda oo u ololeynaya ninka la yiraahdo Jacob Frey oo ololeynaya maayirkii hore oo garab taagan oo leh annaga kana danta noogu jirtaa sabab annaga ninka Soomaaliga ahi Soomaalinimo aaminsan yahay calanka buluuga ah aaminsan yahay shaqada xiisadii taalay hargeysa iyo xamar dhexdooda Soomaalida dhexdeeda ku badii xeer hoosaadka ahayde xanteena hoose ahayde xashaashaqeena hoose ahayde waxaan guri gacmo geel jireedeena ahay bay halka la joogaan ka markudiyeen oo yiraahdeen ninka shisheeyaa naga xiga ka sokeeyay hal mushin doodaas qoladaas ay ku dood qolo kale jirta oo dhinacan iyo xamar ka soo jeeda reeraha ugu badan afka baan ku balaariyay hawiyaha kadib qoladaas waxay leedahay ninkan madowga ah ee Soomaaliga ah ee muslimka ah ee nala dhashay ee nala dal iyo deegaan iyo dhiig iyo dhaqan ba dooranay codkaygan siinmay oo maxaa wacay ninkaas naga xiga cadaanka ah kristanka ah madowga ahayn waxa la wadaagnaa jirinkaas aan xiga oo yiraahdo muxuu idinku xiga ma baxumay baliifa faahay marka tiraahdo wuxuu ku leeyahay 2023 doorasho isla gobolkan ka dhacday baa Naasir Warsame ninka laga codeeyo waxa ka codeeyay ardaygan daaroodka la yiraahdo ee hadda ninkan raba inay soo saaraan shalay haday kabta fiideeda naga istaageen maanta aan kaga istaagayna ninkii laga ka guba xagasha laga guba godob yaryaraysi male madana dab ugu jiray maalinteedii baan joogaa waxaan ku yiraahdo godobtii waa haybin jiray heeray gaadhaba halkaas ay kugu mahmaaheen waxay ku yiraahdeen maanta waa maalintii aan sugayay qoladaas halkaas ay fadhiisteen iyagu maxaa soo haray Soomaalida inteedii kale iyo dudadii daaradka soo haray oo isha ka mirigsiinayo Soomaaliya nala ololeeyo wiilka nala soo saaray wiilka danteedii deegaankeenu ka shaqeynaya tusaale u yahay ciyaalka say wallahi ay wadanka ku kul warkaadii horta qolo ma tahay horta yaadahay daarood iga daa ku codeyn maayo adiga shalay kabta fiideeda iska xiitay
dimuqraadiyad qabiil ma aha arrinka Soomaaliya ay wada ay leeyihiin ninkani qabiilka ma kan wasaan ma jirto Soomaaliya nin walba ay danta noogu jirto waa inaan dooranaa anagu waxaan arkaynaa inaan dooranno ninka la yiraahdo Jaco Fry waqtigan xaadirka sababtoo ah ma aha alternative qof kale la qalma oo doorashada xilligan taagan ma jiro aan asaga ahayn runta markii laga hadlo mar rabna qof hadda tababaranayo waxaan rabnaa qof yaqaano shaqada uu qabanayo aqoonteedii buu leeyahay aad iyo aad ayay maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Jaco Fry waxaan rabaa inaan Soomaalidu u sheego yacni daahir aha wax daahiriyo Soomaali ayadaba daahir ma aha nadiif ma aha ayada la wada daba joogaa kulligood migration fraud iyo suugo inaan ahayn waxay ahaanaysa ka qayb galaan ma jirto Soomaali waxay ka qaban kartaa Minneapolis waa xalooshi Minnesota kartanaa waa ka shaqaysanaa annaga waa degannahay ilaa aan rabnaa inay wax ka bartaan oo wax u bartaan meesha wax ku bartaan ay wax fiican ka noqdaan haddii furaad uu meesha soo galo wax ma noqonaan caruurteena thank you guys waxaa noo badan November 4 Tuesday soo adeeg Jaco Fry every single person in the city to get out there and vote. We have this amazingly strong coalition, north side, south side, northeast, southwest, you name it. Whether you grew up in Somalia, you grew up in the south of Minneapolis, or you grew up in Northern Virginia, we all have this special place that we can rally around, and it's called Minneapolis, the greatest city in the world. So let's go. We're gonna win this. It's looking good. I ask you to get on the team. Saa ujeedaba waxay isugu yimid dadkii ugu muhiimsanaa gobolka magaalada Minneapolis oo uu ka mid yahay gobernatorka oo ka mid yahay ninka uu cararayo cityga duqa magaalada ama mayorka Jaco Fry waxay uga dhigan tahay dadka inuu la isu soo baxay oo lagu taageerayo maalinta ugu dambaysa ee la doonayo in codkooda la siiyo talaadada bishu markay tahay 4 November marka aad iyo aad farxad weyn bay noo tahay saa u jeedin ugu yaraan dad badan baa soo baxay dhowr boqol oo qof maybe 1,000 qof marka waxay kaga dhigan tahay dadka inay momentum iyo si wanaagsan loola jiro mayorka iyo candidatekiisa ama qaabka doorashada uu soo galayo caawa waxaa sharaf weyniya inaan ka soo qayb galay xafladan weyn oo loogu dabaaldegayo mayorka Minneapolis Jaco Fry annaga haddaan Soomaali nahay wiil Soomaali waa tartamaya laakiin dadku illa ma aha la qaybiyo oo loo qaybiyo Soomaali iyo gaalo caddaan iyo madow dadku waa reer Minneapolis ma baahan in la qaybiyo dadka oo la dibaad gareeyo dad badan